السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan qaadanaynaa cashar la xiriira siin, cashar jarmal ah oo aan ku turjumnay afka Soomaaliga lana xiriira siin. Waxaan rabaa inaan baraarujiyo kelmad kasta oo aan halka ku turjumno ama ku dhigno macnaheedana aanu siin ku sheegno in uusan macnaheedu siin ku koobnayn, inay qaadan karto tobannaan macno oo kala duwan, taqriiban 4 macno oo kale oo yacni aan siin ahayn. laakiin macnayaashaasi ma sheegayno sababta casharkeenu dhiganayno maanta waa cashar la xiriira siin. waxaynu soo qaadanaynaa keliya macnahan la xiriira casharkeenu maanta qaadanayno. waxaan rajaynayaa bixin iyo siin in wax u dhexeeyaan afka Soomaaliga. sidaa darteed waxaan qaadanaynaa cashar la xiriira siin ee ma qaadanayno cashar la xiriira bixin. kelmadda ugu horeysa waxaynu keenaynaa dabcan kelmaddii waxaynu keenaynaa macnaheedii Soomaaliya waa macnaheeda siin la xiriira iyo jumlada ama word bayshbil ama tusaale ah si fahamku ugu fududaado qofka ama fahamku inoo ku fududaado. Mid geben siin, siin. Die Mutter hat den Kindern belegt Brot mitgegeben. Die Mutter hat den Kindern belegt Brot mitgegeben. hooyada waxay siisay caruurta rooti wax ku dhex jiraan ama roodi wax ku dhex jiraan. dabcan maaha roodi wax la mariyey laakiin waa roodi wax ku jiraan sida Schinken Fleischwurst oder irgendetwas anderes wuxuun ayaa rootiga ku dhex jira, waa roodi wax la dhex geliyey. marka hooyada waxay soo siisay ama hooyada waxay siisay caruurta roodi wax ku jiraan, belegt Brot kaas ayaa la yiraahdaa. überreichen siin, siin. überreichte ihr eine besonderes Geschenke. wuxuu siiyey hadiyad gaar ah. verabreichen siin. Das Medikament wird Injektion verabreichte. Das Medikament wird verabreicht. Injektion verabreicht. dawooyinka waxaa lagu siinayaa irbad. injection waxaa la yidhahdaa irbadda dawooyinka lagu siiyo marka uu qofku dawooyinka qaadan kari waayo. das medicament waa dawooyinkii, injectionna waa irbadii lagu siinayay, verabreichna waa siintii. marka das medicament wird injection verabreicht. dawooyinka waxaa lagu siinayaa irbad. verschaffen siin. Ich kann deinem Sohn ein Auto verschaffen. wiilkaaga waxaan siin karaa baabuur. wiilkaaga waxaan siin karaa gaari ama waxaan siin karaa baabuur, ninba siduu u fahmayo. versorgen siin. der Gastgeber versorgt seine Gäste mit Speisen und Getränken. martigeliyaha wuxuu martidiisa siiyey cunto iyo cabitaan. der Gastgeber waa martigeliye, waa nin martigeliye ah. hadday naag tahayna maxay noqonaysaa die Gastgeberin, yani martigeliyada ayay noqonaysaa af Soomaali. laakiin hadda nin ayaa laga hadlayaa. der Gastgeber martigeliyaha. versorgt seine Gäste mit Speisen und Getränke. wuxuu martidiisa siiyey cunto iyo cabitaan. anbieten siin. das Spracheinstitut bietet Kurse für Anfänger an. das Spracheinstitut bietet Kurse für Anfänger an. macadka luqadda wuxuu bixinayaa koorso bilow ah. besorgen siin. sie hat ihrem Bruder einen guten Job besorgt.
waxay walaalkeed siisay shaqo wanaagsan walaalkeed waxay siisay shaqo fiican angeben siin bitte geben Sie diese Informationen zu Ahmed bitte geben Sie diese Informationen zu Ahmed fadlan macluumaadka Ahmed sii fadlan macluumaadkaasi Ahmed sii waxaan rabaa inaan mar labaad baraarujiyo kelmad kasta oo aan halka ku qaadanay macnaheedana aan ku soo koobnay siin macnaheedu siin ma aha yacni macnaheedu siin kuma koobna waxay qaadataa macnayaal badan oo aan siin ahayn tusaale ahaan angeben hadda waxaanu soo qaadanay hal macne oo siin aynu ku turjunnay waxay noqon kartaa sidoo kaleto sheegid waxay noqon kartaa istustus yacni ayaa af soomaaliga loo turjumi karaa waxay noqon kartaa qoris macnayaal kala duwan ayay qaadan kartaa for example gibt an dass ein Video vom Kanal Bash Academy bezüglich die Sprache schaute wuxuu sheegay in uu video la xiriira luqadda ka daawaday kanaalka Bash Academy oo sheegid sidoo kale istustus du bist angeber istustus ayaa tahay du bist angeber istustus ayaa tahay sidoo kale qorid ich gebe das Wert im Angebot an qiimaha waxaan ku qoray dalabka la soo gudbinayo yacni kelmad kasta oo kelmadahan ka mid ah sida haddaynu angeben oo kale u turjunay waxay qaadataa macnayaal badan oo kala duwan laakiin mawduucaynu maanta qaadanaynay wuxuu la xiriiraa siin sidaa darteed waan ku khasbannahay keliya inaynu soo qaadanno halka macno aynu u baahannahay haddaynu kelmadda macnayaasheeda oo dhan keenno waxaa dhacaysa in uu videogu dheeraado marka labaad in aynu ku wareerno oo marna bari ka hadalno marna galbeed ka hadalno maxaa yeelay hal kelmad oo sida angiba ama besogan ama kelmad uun kelmadahaas ka mid ah ayaa marna bari ka hadlaysa marna galbeed ka hadlaysa taa macnaheedu waxaa la adeegsanaya macnayaal kala duwan iyadoo hal kelmad keliya la adeegsanayo ayaa waxaa loo turjumaya afka soomaaliga macnayaal kala duwan waana macna ama waa yacni nooc uu leeyahay af kasta ma aha wax ku kooban afka jarmalka walowba uu isaga aad ugu badan yahay haddaba qofkii raba inuu kelmadda macnayaasheeda koobo tusaale ahaan angiba macnayaasheeda oo dhan inuu barto besogan macnayaasheeda oo dhan inuu barto fadlan iibso oo qaado buugga umfangreekha ishpraache buuq oo ah buugga aanu hadda ka dhigano casharka waxaad ka heli kartaa amazon qaybta jarmalka amazon.de waxaad ku raadi kartaa magaca umfangreekhe ishpraache buuq Deutsch Somalisch